بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaasha qiimaha badanow ku soo dhawaada barnaamijkii murtida toddobaadka qaybtiisii saddexaad barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa haddii alla idmo mahmaahda Soomaaliyeed maanta waxa aynu ka hadli doonaa shanta mahmaahood ee soo socda ta ugu horeysa waxa ay leedahay rag waa saddex nin wax garad ah oo ismooda nimaan wax garanayn nimaan wax garanayn oo is-og inaanu wax garanayn nimaan wax garad ahayn oo wax garad isu haysta macnaha aan ogeyn inaanu wax garad ahayn mahmaahdan ka hore ninka hore waa nin wax garad ah laakiin isuma haysto inuu wax garad yahay oo marka loo yimaado ee la yidhaahdo arrinta wuu iska riixaa wuxuu yidhaahdaa war waa layga caqli badan yahay waa layga waaye aragsan yahay waa layga weyn yahay maxaan idhaahdaaye idhaafa oo bal dadkaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel u taga waayo mar kasta waxa uu dareensan yahay in laga caqli fiican yahay oo laga waaye aragsan yahay oo laga garasho fiican yahay oo laga go'aan wanaagsan yahay marka sidaan dadka taladaa wanaagsan u seegin oo aanu u xayirin mar kasta wuxuu isku dayaa inuu cidda ka caqliga badan isu dhaafiyo arrinta ninna waa nimaan wax garad ahayn laakiin wuu og yahay inaanu wax garad ahayn marka arrin loola yimaado wuxuu idhaahdaa waar anigu nin talo ma ihi ee raggii talin jiray waa garanaysaane doonta marka dadka waqti kama lumiyo mana hororsado ninkaasi waxba waa nin mar walba daba taagan qofka wanaagsan inuu ka tala qaato nin arrin hororsadana ma aha haddii loo dhiibo nin isku qaadana maaha ninna waa ninaan wax garad ahayn oo wax garad isu haysta marka arrin loola yimaado madaxuu iskaga duubaa aniga mooye cid wax taqaanaa ma jirto buu yidhaahdaa ninka caqliga badan markuu arrinka ku jiro kama fadhiisan karo oo waxba kama xallin karo oo marba dhinac buu kaga yimaadaa waana ka ugu xun ragga ee ugu liita ee ugu doqonsan uguna dhibka badan waxaanad is odhan kartaa maanta Soomaalidu kaasay u badan tahay maamaada kale waxay leedahay maag shisheeye macangeg baa loo diraa muran sokeeyana maareeyaa loo diraa waxay ka wadaan dee marka cadow laysayo ee aan naxariisi oolin dee ninkaas baa loo diraa ku habboon maxaan idhaahdaaye cadowgu waxa ku habboon yahay marin karaya muran sokeeyana maareeyaa loo diraa bay yidhaahdeenoo dee nin muranka sokeeyaha maareyn kara oo naxariis badan oo debicsan oo dulqaad badan oo garasho badan ayaa loo diraa waxaa kaloo yidhaahdeen raq sokeeye runtaa laga sheegaa rabadintay ku dhalaysana lagama tago halkaa eex baa ku yara jirta mahmaahda markaa dhibka sokeeyaha oo keliya runta lagama sheegee mid sokeeye iyo mid shisheeyaba runta waa laga sheegaa xaqa saaxiib looma eego xigto looma eego midaad necabtay looma eego naftaada looma eego xataa naftaada looma heeliyo xaq darrana laguma garab siiyo waxaa la yidhaahdaa maxay dantu ku jirtaa haddii dantu ku jirto adiga oo gar leh inaad gar weydo waa la oggolaadaa waayo dantaada waxaa ka weyn danta guud ee bulshada si kastoo ay ku hagaagayso waa loo badheedhaa xataa xoolahaaga ayaa la siiyaa qofka xuni haddii uu ku qabsoomayo si dadku uga badbaado waayo waxaa jirta mar ninka xun aanad canaanan karin oo xidhi karin oo dili karin oo intaba haddaad isku daydo dhibkaad ka ordayso mid ka weyni ka dhalanayo mahmaahda afraad waxayna leedahay rag waa soof eeg iyo suuleeg nin waa suul eegoo sabadaaq baa la yidhaahdo
muranka iyo jaafaajirka sokeeyaha ayuu u xoog weyn yahay. Inta hareerihiisa joogta ee dad ugu xigta ayuunbuu ku meeraystaa. Ninna cadow iyo meel fog ka fekerkeeda ayuu ku foognaadaa oo waqtigiisa geliyaa. wixii deegaankiisa iyo dadkiisa kaga yimaadana wuu u dulqaataa oo caqli iyo xigmad ayuu ku xalliyaa. mahmahda shanaadna waxa ay leedahay saddex bay dhashaa. maskax ururtay madax bay dhashaa. maanyari ururtayna muran bay dhashaa. maato ururtayna murug bay dhashaa. maskax ururtay waxay badisaa cuudka, caqliga iyo cududda, dabeetana madaxnimo ayay dadka gaadhsiisaa. maanyari ururtayna muran iyo tafaraarq bay dhashaa, oo gunnimo iyo xumaan bay dadka u horseetaa. maato ururtayna murug bay dhashaayoo waa xalla'aanoo waa ta ugu halisaysan uguna cawaaqibka xun. barnaamijkeennii murtida toddobaadka intaas baynu ku soo gabagabaynaynaa. waa anigoo maxamed kayse oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qoyska, toosinta waalidka, barbaarinta carruurta, tiirarka farxadda, tiirarka khilaafka, tiirarka xalka iyo waxyaalo kaloo badan. haddaba buugga jidka qoyska gurigaaga ha yaallo. wixii oori wareertiiyo odayaashii asqoobay markay buuggan arkaan asraarkii dhex yeeliyo umalkii kala weeshay, haddii eebba idmo islaantuu ka bogsiinoo odayguu ka bogsiinoo ubadkuu ka bogsiine aqalkaaga ha yaallo buugga jidka qoyska. jidka qoyska. haddaba wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefanada shaashada kaga muuqda.